wadigiyo wadaajirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواو channelkayga MayaBeauty waxaweyaan Sameyo oo nigu soo noqotay maanta waxaan ii sameeyay makeup aad u qurxoon soo arkaysiinba waa Valentines Day makeup look marka I hope ina ka heshiin sida loo sameeyo makeupkan amba ka hesheen videogan ayga idoobina like comment iyo subscribe ka insha Allah waxaan doonaynaa inaan horta aad bani wala jeceliya wallahi Soomaalidu waa supporters aad وفعلا dadku way caawiyaan waan arkayaa wallahi subscribe ka inay u kordhayo views ka inay kordhayaan aad u wala maasantihiin insha Allah waxaan doonayaa inaan gaaro 1000 views ayaan doonayaa inaan gaaro insha Allah marka ii wala daawada asxaabta u dira walaalaha u dira kasankiina u dira familiga u wala dira ali wala daawado insha Allah videoyaashayda san u gaaro ama gabar Soomaaliyeed si u gaarto ولاashina soo gaarto xaqi doonayso insha Allah waxaan sameyn doonaa giveaway waan sameyn doonaa very soon ayaan sameyn doonaa giveaway marka insha Allah daawasho wacan I hope ina ka heshiin videogan si loo sameeyo Valentines Day lookan oo aad u qurxoon oo aad uga helay oo very fudayda hadda daawatiin videogayga oo ku celiishatiin si fiican u copy gareysiin oo u sameeysiin inukuna si fiican baa u sameyn kartiin easy fudayd baa u sameyn doontiin horta and هذا السؤال هيسين أمبا any about makeup أمبا makeup كسان ما تأمرسي أمبا in general بهذا السؤال هيسين سناب شات كا إنستغرام كا فيسبوك إجلسوا حريرة مالك السبا ونكوشرا إيه تيك توك ونكوشرا مركا إجلسوا حريرة حكا مسج إجلسوا قرا ونسوا شوي بدون إن شاء الله مركز and هو عن and yeah Valentine's Day جا مرصدة makeup كان وكاس أفين بنستعملنا أفين وhydration أفين حيسينيا hydration وhydrating cream وفرنسيس وفرنش cream مكاين بنستعملها. The only reason why إني استعملها is because وhydration بدن ما دوني أد إن hydrated ونقضى مكاين بنسدا فرحيقة مرمرينيا سأركزين با and then repeal order أيان كلا مريننا marka uu arkaysiin hydration badan buu ku siinayaa udgoon si udgoona ayuu uraa very good ana horta Aveen products kiisa oo dan aad baan ugu helaa laakiin waa very qaali laakiin wallahi skin care ka amba wajigaaga waxa qaaliya anigu number 1 horta skin care kayga iyo wax ku saabsan I think makeup ku muhiim maaha waxa very muhiima skin care kaaga haduu skin care kaaga makeup ku muhiim maaha wajigaaga uma dilisa waxa very important xaga hoose makeup ka hoostiisa ina hagaajisid before aad makeup marsatid dad badan ba makeup ka lacag badan ku bixiya laakiin skin care ka iska ilooba marka hada skin care kaaga ka fikir weydid dan finanki iyo you know wajiga ayaa ka xumaanaya marka waa very important inaan skin care fiican iibsano wajigayga automatically waa hydrated wallahi aan ku yara jooginaa daqiiqado ayaan ku jooginaa ana sidoo si fiican jirka u galo okay waa kaas marka waxaan ku xigsiinayaa waxa weeyaan kiisa kale Aveen waa same product Aveen spring water I feel like qofku haduu haysto waji qalayla amba dry spring water waxa weeyaan biyaha springa thermal spring water ayuu u fiican yahay wajiga hydration ka marka waa biyo spring daaqada ay furan shimbirihi baa maqlaya marka iga lahaada hada waxa maqlaysiin waa shimbiro marka thermal water ka saniyadi aad buu u fiican yahay you know soothing buu siinaya calm buu ka dhigayaa wajigii especially makeup madama marsanano sometimes no waa inaan wajigeena ilaalino because product kastaba wax ba ku jira ingredients ka marka wajigeena waa inaan ilaalino aad u ilaalino wajigeena marka thermal water kan horta Aveen wajigoodan waa soothed
skinkii waa soothed waan ka arkaya muraayaddan si fiican ugu arkaya difference-ku uu sameeyo marka adin productyaashiisa oo dynamica malaha 5-6 sanadood baan isticmaalayay wejigaygana aad buu u caawiyay aad saan yiri waa yar qaali laakiin hadda mar iska soo iibsatid oo wejigaaga ilaalisid oo dee haddaa haysatid eczema haddaa haysatid dry skin anything wejigaaga u caawinaya research markaas may Fransiiska ayay ku haystaanba factoryga ayay ku haystaan thermal water oo qofku gali karo wejiga oo jirka iyo wejiga markaa dee ayuu u fiican yahay marka dadku waan bacdaan ku tagaan oo way soo galaan biyaha anigu weli maan tegin laakiin maybe future waan tegi doonaa Fransiiska meel ma xasuusto exactly magaalada laakiin meel baa la tagaa wala galaa wejiga jirkaagii oo dan si fiican buu dee عجيب ونقنيا. وجهي إنه كوي dry نقضه وقليل نقضه أيام دونيا وصفي عن برودكو شركة أوغلا. and then وحنكو حسين إن primer key يو pals كان استعمال نيمك وأنا قصر نقدونه إن شاء الله. okay and واكاس وأنا قصر نقضي and وحن استعمالي دونا وحويين pals كني bright and pally radiance boosting cocktail and وpals so أركستين با حبيت مكالا يرتوشيو حبيت باقر حيسا and then وجهاga ayaa makeup ka hoostiisa marinaysa amba makeup ka foundation kaaga ayaa ku mix gareyn kartaa wuxuu ku siinayaa radiance boost like boost buu ku siinayaa runaad sidaan Somali radiance qurux nuur ayuu ku siinayaa marka sidaas ayaan ku rub garanayaa farahayga hore and then saa dul marmarinaya wajigayga wakas and in yar baan ku yira jooginaa like daqiiqado ayaan ku joogi doonaa okay marka waxaan bilaabaynaa correcting baan bilaabaynaa I know waxa weyn in la isticmaalo yellow amba orange amba any color laakiin anigu waxaan aad uga helaa phone kiisa kale laban haysta marka kan already waan soo yara tuujiyay ready inaan wajigayga mariyo marka waxa weeyaan pro concealer LA Pro Conceal weeyaan waan ku conceal garanayaa laakiin runtii waxaan jecelahay color midabkayga u dow and before foundation ka I don't know waxaan arkay difference baan ku arkay makeupkayga markaan marsado colorkan iyo indhaha hoostiisa ayaa in yar marinayna laakiin markaan marsado anigu difference baan arkaa makeupkaygu wuxuu soo baxaa si qurux badan marka try gareeya insha Allah lookan amba triggan try gareeya tijaabiya insha Allah marka foundation kana ka daba marsada marka arka makeupkiina muu isbedelay muu qurux buu yar noqday isoo sheega insha Allah xagga Snapchat-ka Instagram-ka iga wala cad gareeya oo isoo sheega haddaa lookan sameyseen amba haddaa ka hesheenba waxaan isticmaalaya waxa weeyaan Zoefa brush 142 conceal buffer waa buffer ka yar aad buu u fiican yahay especially marka conceal gareynaysid waa buffer aad u fiican oo lagu conceal gareyn karo marka waa kaas waan conceal gareynayaa wejiga oo dhan to be honest waxaan jecelahay inaan outwards aan sameeyo as well iyo inaan hoos concealerka so concealerka haddaan xaggaa mariyo xagga dusha waxaan jecelahay inaan hoos sidaa ugu soo jiido dhinacyada kale aan u mariyo marka inta brushka ku yaala waayo haddaan xaggaa uun focuska siiyo ma fiicno ereyada oo dhan baan focuska siinaynaa ilaa kor maanta walaahi habeenkii baan record gareeyaa marka maanta waxa weeyaan galab waa galab marka shimbirihii baa qaylaya marka so beautiful wallahi masha Allah shimbiruhu markii qaylayaan masha Allah tabarakallah okay waa kaas concealed wajigii waan conceal gareeyay straight away marka waxaan doonayaa inaan foundationkeena marsano markaste foundationka ruux waa very important inaan la shade gareeyo foundationka marka foundationkayga ayaan ruuxayaa foundationkan isticmaalayna waxa weeyaan NARS Radiant Longwear Foundation
and markaste kanuman isticmaalaa because I feel like wajigayga ayuu u fiican yahay and makeupkayguna si fiican buu soo baxaa especially qofku markuu arko foundation uu ka helo then kaan buu markaste marsanaya laakiin insha Allah mid kale oo soo baxay I think videoyaashada waan ku mention garay iyo soo socda kaasana itusi doonaa marka and so wajigayga ugu soo baxo like ani wajigayga waa yar waa dry so very much foundation ka soo socda aan order garaystay waxa lagu talagalay matte wajiga matka laakiin subscriber-kayga iyo dadka channel kale waan haystaa niiriba Maya Talks marka iyo Snapchat-ka Instagram-ka ayaan weydiiyay waxay dhaheen no review no samee oo na tus so skin-kaaga ugu eegyahay amba suu noqdo skin-kaagu marka waxaan doonayaa inaan natuso kana soo marsanaya and then waan ugu soo noqon doonaa insha Allah si fiican baan wajiga foundation-ka u kala marinay marka waxaan isticmaalana waxa weeyaan Zwiffer brush amazing brush sida Morphe brush-ka ayuu kana aad u cajiib yahay was so important ina ku invest garaysid amba isticmaashid brushes yar qaaliya oo fiican oo wajigaaga u fiican so marka makeup-ku amba foundation-ku ay wajigaaga si fiican u blend garanaya si fiican buu ugu soo baxaya saan yiriba skincare-ku waa very important alaabaha isticmaalisid brushes-kana waa very important insha Allah waxaan doonayaa inaan sameeyna giveaway marka giveaway-ga insha Allah waa maqasheenba giveaway baan sameyn doonaa insha Allah soon marka brushes fiican baan doonayaa inaan gabadh nasiib xagga nasiibka ayaan sameyn doonaa waxaan iga codsanayaa un subscribe-ka like iyo comments-ka so instruction-ka video kale aan soo saari doono ayaan nigu sheegi doonaa buffer brush-ka waxaa la dhahaa 104 buffer brush marka waa kaas waa all blended nicely next waxaan isticmaalaya waxa weeyaan Too Faced Born This Way multi sculpting concealer waxa weeyaan concealer cajiib weeyaan very good and shade-ka I know markas waxa la yiraahdaa shade-ku waa maxay warm sand baa la dhahaa warm sand yan shade-kiigu yahay xagga hoostana waan igu soo qori karaa so insha Allah haddaan iloobin waan igu soo qori marka waa Too Faced Born This Way concealer waxaan mariyaa indhaha hoostiisa amba ila daawada insha Allah xasaan u mariyo Morphe M173 brush clean brush ayaan isticmaalayaa saan u blend garayo waan blend garanaya marka blending waa very important marka saasaan ugu blend garanayaa concealer-ka and then indhaha hoostiisa ayaan sida ayar xagga hoosaan ka bilaabayaa because korka product-ka oo dhan waa kan marka hoosta ayaan geenayaa product badan maaha inaa isticmaashid I feel like haddaa product badan isticmaashid then wajigaaga iyo makeup-ka iyo concealer-kii uu isla wala xumaanayaa marka product-ka badan brush-ka ayuu anyways fuulayaanba galayaa marka markasta sida ugu blend gare ana inta soo harana madax ayaan jecel amba forehead-ka inaan mariyo laakiin maanta waan sii mariyayba marka waa kaas sidaas uma ugu blend gareena hoosta ayaan keenana kor hadana blending waa very important so ay loobina blending-ga mar uun ay ka caajisina blending-ga ay ka caajisina insha Allah
Okay, shimbirahan subxaanallah maasha allah waa kaas waan conceal gareeyay wejigii oo dhan. Wow, areadii indhaha hoostiisa ayaan blend gareeyay, chinkii iyo sanka hoostiisa iyo foreheadkayga. Marka waad arkaya seamlessly blended. I feel like blending waa very important. haddaa blendinga sameyn makeupkaagu si fiican ma usoo baxayo, marka ha iloobina blend gareeya wejiga. blend ka daalina. Okay, and next waxaan doonayaa isticmaalo waxa weeye NARS concealer. NARS concealer kan aad baan u jecel yahay. I feel like NARS in general aad baan u jecel yahay. Makeup company-gan la yiraahdo NARS amazing. Shade-ku waxa weeyaan caramel, medium to dark number 2 weeyaan. Marka anigu waxaan u isticmaalaa sidaan under eye-gayga bright uga dhigo. Marka xaggan baan ka bilaabaya, and then xaggaas ayaan marinayaa, and then same thing xaggan yar baan marinayaa sanka agtiisa, and then isha xaggaas ayaan marinayaa, chinkayga ayaan saa u marmarinayaa. I don't even know chin kasta loo yiraahdo af Somali. And then sanka hoostiisa. Productkan waa product aad u fiican, and conceal aad buu ku conceal garanayaa. Anu waxaan u isticmaalaa as a bright, you know, inuu bright ka dhigo indhaha iyo meel kasta aan conceal gareeyay. And makeup lookana waan jecel yahay looka bright-ka, bright under eyes iyo just very beautiful weeyaan. Colorka aan anigu u dooyahayna waxa weeyaan Amande. Maanta waan marsanayo laakiin waan haystaa. Amande waa very good, especially xagga afka inaan la mariyo. laakiin maanta aad baan u doonayaa inaan bright ka dhigo on makeup qurux badan aan marsano, maadaama aan sameynayno maanta Valentines Day look. Marka kor ma u doonaya inaan si fiican u jiido, bas indhaha hoostiisa inaan under eye-gaygu aad bright u noqdo ayaan doonayaa. So blending waa kaas, waan conceal garanay, waan blend garanay. Ilaayo kor ayaan usoo qaaday intii xaggan baan ilaayo korkaas aan ku yara bilaabanaa inaan, you know, under amahe contourka inaan dee si yara bilaabno concealkii contourka hoostiisa, laakiin weli ma conceal gareynin. Marka dambe ayaan conceal garanaa, laakiin imika ahaan waan ku blend garanayaa. Next waxaan soo qaadanayaa contourkii. Okay, and contourka maanta isticmaalna waxa weeyaan stick-gan. Colorku shade-ku waxa weeyaan chestnut. Chestnut number 9, and waa foundation stick. So ana absolutely I love this, especially haddaan doonayo makeup-kayga inaan maanta cajiib like ka dhigno. Marka in yar baan sidaa u marinanaa, because in yar ayaan ku bilaabanaa horta, and then waa kaas. Xaggana waa marinanaa iyo xaggan, and then foreheadka. Laakiin foreheadka waan igu soo noqon doonaa, because xijaabka inaan yar dhigo weeyaan foreheadkana mariyo. And then sanka ayaan sameyn doonaa. So yeah, first waan blend garananaa. Okay, blendinga markaa sameynanaa. Waxaan soo qaadanay waxa weeyaan Morphe E4 brush. Ayar baan saa ugu blend garananaa. So arkisiinba kor baan doonayaa inaan u qaado, ma doonayo hoos inaan geenno. Marka kanna saasaan u sameynaynaa. So arkisiinba. And then chinka ayaan marinaynaa, xaggii hoosta ayaan blend garanaynaa. So arkisiinba. Anaan ku noqonaynaa xaggan. Okay, waa kaas. So arkisiinba. Waan blend garanay. Foreheadkaygana contourkii baan isticmaalnay. Well, foundation stick weeyaan, laakiin waan contour garanay. Yar baan zoom yar sameynayaa. So arkisiinba waxaan isticmaalay Too Faced Born This Way. Waxaa lagu talagalay alaabteena waxaan u jecel yahay waa concealer.
saan u conceal gareeyo waxa weeyaan contour waxa weeyaan highlight waxa weeyaan retouch marka afartaa wax in one amazing marka waxaan sameeyay contourkii ayaan hoosta isku isticmaalay and then kaasa markaa blend gareena waxaan isticmaalnaa morphe brush and then sidaas ayaan u blend gareenaynaa saan ugu jirno contourkii ilaa xagga ma keenano saa arkaysiina xaggana waan isticmaalay contourka highlightkaas ayaan because waxaan doonayaa xagga inaan ku toojino waa kaas xagga kalena waan mariyay and then xaggaasna waan highlight waan blend gareenaynaa insha allah ayar baan u taabsanaynaa soo arkaysiinba blending waa very muhiim marka waan blend garanaynaa and then sidaas ayaan soo arkaysiinba sidaas motionkaasaan isticmaalaynaa saan u blend garano siduu markaa u daafin contourku xaggaasi because haddaa contourka ilaa xaggan keentid ma qurux badno ma fiicno wejigaagu you know structurekii baan ka baabiinaynaa wejiga marka siro ayara tap ayaan u tap garanaynaa saan u blend garano and then dhinaca kalena saasun weeyaan ilaa iyo xaggaasaan keenaynaa siduu contourku xagga ugu joogsado so qurux badan markaa wejigu uu soo baxaya it doesn't matter haddaa ilaa iyo contourka gaarsiisid concealerka hadda tolunba haddana contourka iyo bronzerka ayaa next sameynana anyways marka haddaad doonaysid ilaa xaggan baa keeni kartaa haddooyin badan ku haro blending brushka soo arkaysiinba blendingii waan dhameynay blend marka waxaan sameeyey brushkii E4kii ayaan bes ku yara noqday oo sidaa ugu yara taabsiyey contourkii marka waxaan soo qaadanayaa next bronzerkan isticmaalayna waxa weeyaan morphe waa morphe bronzer shadekuna waxa weeyaan megastar marka megastar baa la dhahaa bronzerkan waa bronzer very good dad badan baa isticmaalaa waa imika maalin malaha few months ago buu soo baxay waa cusayb laakiin waa very good bronzer anu waan ka helay waa kaas marka brush ayaan soo qaadanaynaa morphe brush and then accesska saasaan ugu saaranaa and then saasaan u marinaynaa masha Allah was so beautiful I don't know how much it's showing kamarada intuu tusaya ma garanayo laakiin waa amazing anu muraayada ayaan ku arkaya imika wuxuu haystaa mirror buu haystaa compact mirror marka waa stunning beautiful waxaan sameeyay contourkii ayaan furuuraha mariyay iyo furuuraha hoostiisa ka hoosta ayaan mariyay and then xaggaas faruurta dushiisa ayaan marinay saan u enhance u siino furuuraha saan enhance u siino oo qurux u noqdo maadaama maanta sameynano look Valentines Day furuura waxaan doonaynaa inay noqdaan popping you know very beautiful contour everyday ma isticmaalo makeup lookan markasta ma isticmaalo only you know maalmaha dee lagu talagalay inaa makeupkaagu cajiib noqdo ayaa isticmaali kartaa oo si fiican u highlight garayn kartaa u contour garayn kartaa indhaha xaggan ayaan contour garanaynaa because maanta waxaan doonayaa makeup lookaygu especially indhaha inay waaweynaadaan oo qurux badnaadaan oo indhaha la siiyo focus iyo furuuraha taas waa ma doonaya inaan isticmaalo eyeshadow popping maanta waxaan doonayaa browns inaan isticmaalo iyo kalaro qurux badan marka sidaas ayaan u marmarinayaa soo arkaysiinba waa kaas waa very much snatched kan iyo kan isku mid ma aha kan imika makeup markaan sameeyo qurux buu noqonaya maybe futureka ayaan sameyn doonaa dhinacna
contour dhinacna black contour maybe hadda doonaysiin ina aragtiin indhaha markaa qurux buu noqonayaa insha allah contourkan waxaa marinayna actually powder contour baan sanka marinayna maanta I don't know I just don't want inaan noqdo very plastic because wallahi runta baashani waa baal cajiiba marka qurux buu kaa dhigayaa snatch buu kaa dhigayaa laakiin sanka waxaan yar siinaynaa bal in yaroo dee ma doonin inaan aad qurux uga dhigno okay marka Zwiffer brush baan soo qaadanayaa waxa weeye numberku 235 contour ayaa lagu talagalay and 235 waa contour brush soo arkisiinba iyo waa by Zwiffer marka powder brush baan isticmaalanaa powder baan isticmaalanaa for contourka marka palette kan isticmaalna waxa weeyaan amba compactkan waxa weeyaan from sleek makeup marka in yar baan soo qaadanaynaa waan arkisiin maaha ma garanayo laakiin in badan baa kasoo duulay okay waan ku yara badin doonaa because waxna ma ku jiro okay waa kaas so say la arkisiinba sanka yaan si fiican u contour garanaynaa anu waan arkayaa shadeka already isbedel contourka waan arkayaa isbedel weyn ilaa iyo kor indhaha amba xirbaha hoostiisa ayaan geenaynaa maybe zoomed baan ugu yara samayn doonaa in yar waa kaas and then xaggan baan haddana saa sameynayaa contour and then sanka hoostiisa ayaan keenaynaa and then dhinacan baan saa u marinaynaa iyo xaggan and then blendingii waan sii wadaynaa ilaa iyo isha amba xirbaha hoostiisa ayaan marinaynaa sorry waa kaa marka waxaan soo qaadanayaa Fenty Beauty concealer shadekun waa Pro Filter shadekun waxa weeyaan 350 to be honest waxaan raadinayay colorkii ka lighterka ahaa kan oo Fenty Beauty laakiin it's not a problem in yar baan doonaa isticmaala anyways ma doonayo aad inaan u highlight gareyno sanka marka ila daawada insha allah waxaan doonayaa inaan bes xaggan hore inaan marino soo arkisiinba iyo waa kaas xaggaas aan doonaya inaan mariyo anyways laakiin iyo xaggaas waa kaas intaa uma marinaynaa because channelkayga horta markasta waan ka hadlaa markaste a little bit goes a long way so in yar hadaa marsatid in badan like productku uu badan yahay anyways so isku badinina especially markaa dibadda u baxdayn like fooxumo ayuu u ekaanayaa marka in yar isticmaala wax kasta ay isticmaalaysiin in yar qurux buu soo noqon doonaa hadda tole wejigaaga waa very beautiful dadku ma kula yaabayaan because sometimes dad waxaa arkaysaa contourkii amba si like in badan sanka saa u wala marinaya wax badanna marinaya ku celinaya marka dibad markaa u baxdeed oo dee natural lightska lagu arko it's a no go waa lagula yaabayaa xaggana waa yellow xaggana waa pinky xaggana waa marka inaan is ilaalino weeyaan waxaan soo qaadanayaa brushkii conceal bufferkii ayaan soo qaadanayaa waxaan ku jecelaya waxa weeyaan because already waxaa ku jira productkii aan isticmaalay waxaa ku jira productkii aan dee ku conceal gareynay oo dee kan uu ka darker buu ka yaryahay marka wuxuu noqon doonaa marka mix buu noqon doonaa marka aad highlightku aad ma noqon doono so arkisiinba sorry muraayadeeda ayaan hoos u eegaya because intan waa very muhiim waa arkisiin intii yaraa aan meesha xaggan marinay sanka ayaan isticmaalayaa I feel like inta dushaba maaha inaan isticmaalo qalad baan u marin xagga dusha haddaa sanka uun xaggan hoosta u marisiin waa very important and then xaggaas ayaa sanka walahi ma garanaysaan u tilmaamo laakiin waa arkisiin xaggan marinayo and then saasaan u blend garanayna insha allah is
it's not a problem because hadhow toole waxaa very important inuu qofku blendinga ay loobina qofku wuxuu sameeyaa dad badan baa arkaysaa iska marinaya oo blendingii sameynayn blending markaa waxaa very important ah colorkii inaan blend gareeno on makeupkii aan marsanay amba foundationkii aan marsanay aan si fiican seamless look u noqdo aan ku blend gareeno marka waad arkaya like it's very much snatched, you know. xaggan koonaha ayaa isticmaalaysaa brushka xagga dusha maaha because ma blend garayno laakiin stars ayaan ugu taabsiinaynaa kor u qaadanaa hoos baan u marinaynaa hareeraha ayaa markaa sidaa u marinaynaa ku celcelinaynaa gacanta inay ku daalin waa kaas koonaha xaggaana mariya inta ku hadhay xaggaana mariya insha allah marka in badan baan ku joogay concealerka waxaan sameynaynaa translucent powderkii baan soo qaadanaa imika translucent powderkayga an waxa weeyaan loose setting powderka aan isticmaalo waxa weeye maanta Laura Mercier translucent powder anu markaste even haddaan powder cusub siibsado kanuma kuna noqdaa I love it waa powder aad u fiican many years baan isticmaalayay very good waxaan soo qaadanaya marka maanta waxaan isticmaalayaa Real Technique brush marka in yar baan sidaa usoo qaadanayaa and then maanta waan ku like how do I say it? Like si fiican baan doonaya inuu u galo marka I don't know if loo yiraahdo laakiin waa arkaysiin saan sameynaya anyways waxaan sameynaynaa Huda Beauty Easy Bake ayaan isticmaalanaa marka waxaan doonayaa horta shade-ku waxa weeyaan cinnamon bun iyo satin powder labadaba noqonaya marka waxaan doonayaa inaan ereyga afka amba smell line-kayga ayaan doonayaa inaan mariyo waxa weeyaan more color-kayga soo arkaysiinba waxaan soo qaadanayaa beauty blender Real Technique beauty blender ayaan soo qaadanayaa waxaan isticmaalayaa markaa NYX Juby setting spray ayaan doonayaa inaan ku yara buufiyo in yar Real Technique brushkan suu damp u noqdo uu si fiican powderka ugu dego meeshii aan conceal garaynay oo dhan ayar qalalo insha allah okay markaa waan ku yara tuujinaynaa so u baygaraysmo soo arkaysiinba xaggaas oo dhan ayaan marinaa as well meeshii oo dhan aan conceal garaynay ayaan marinaynaa hijaabkii buu iga maray okay waa kaa xaggaasna waa kaa oo marinay was so beautiful like you see so wajigayga isku waa kaa next waxaan soo qaadanayaa waxa weeyaan Charlotte Tilbury powder waxa weeyaan air brush flawless finish waxa lagu talagalay I don't know waxa ku jira baashan laakiin waa baal cajiiba like literally under eyegaagu wuxuu noqonayaa beautiful like very smooth like so brush kale ayaan soo qaadanayaa oo ah Morphe E48 brush ayaan soo qaadanayaa sidaa ugu taabsiinayaa and then inda hoosiisa ayaan dul marinaynaa meeshii oo dhan aan conceal garanay ayaan marinaynaa was so beautiful markisiin
like it is so stunning. Finish qurux badan buu ku siinayaa, very much like waxaa lagu talagalay photoska. waxaa lagu saarayba airbrush runtood airbrush finish buu ku siinayaa. waxaan soo qaadanayaa foundation brushkaygii, waxaan doonayaa furuuraha, waxaan soo qaadanayaa Morphe brush weeyaan waxa weeyaan M527 brush. marka waxaan doonayaa inaan powderka oo dhan iska wala masax iminka. stepkan ayaan doonayaa inaan ku buufiyo wejigayga. I feel like waan u baahan yahay, marka ila daawada insha Allah. marka waa kaas. Continuous setting miski is on my face, very good. And powderkii baan ka ordnay. marka wejiga waa very good right now. I like it. And so powder ka dhigay wejiga ayaan aad uga helay. waxaan soo qaadanayaa blushkayga. blushka aan maanta isticmaalno waxa weeyaan colorkaas ayaan doonaya isticmaalo. runtii wallahi waxaan doonayaa colorkan inaan isticmaalana, laakiin makeup look aan maanta doonaya isticmaalno. I feel like colorkan baa ku qurux badan. waxaan soo qaadanayaa Morphe M405 brush, and then colorkaas ayaan ku daab garanaynaa. and then saasaan u smile garanaynaa, then waan marinaynaa. and then same thing baan samayn doonaa dhinacan. Such a beautiful color, mashallah. Especially hablaha woman of color. I feel I ka baqanina colorka haduu saa u eeg yahay amba ka huruud yahay amba yellow yahay, aad midabkaaga amba the more aad darker sii tihid oo dark skin sii tihid, the more uu colorku kugu soo baxayo. marka ka baqanina colorada iska try gareeya, iska sameeya, and waa arki doontiina unagu soo bixi doonaa. ma haba inaad dibadda ku baxdeed, xaafadda ku try garee, colorada iska experiment garee. marka waa arki doontaa colorka kugu soo baxayana waa arki doontaa. marka waa kaa. To be honest, colorkan dahabigana waan doonaya inaan mariyo. marka bal waan yar marin doonaa dushiisa umaan saa ugu dul marinayaa. waa kaa. wuu isku soo baxaan labadu horta. سو أركسين با سو صباحان وكاس. You can never have too much of blush. Blush is amazing. Ooh. Okay, highlight كأمات استعمالنا وحويا highlighter ير pink وقرح بدن وآدي قرحان وcolor كاس أيامات استعمالنا وpink highlighter. cheekbones ka ayuu ku qurux badan yahay colorkan. waa cadaati, pinky cadaati ah. Morphe brush waa M501 brush ayaan isticmaalayaa to highlight. very stunning, like mashallah. I don't know inuu kamaradu si fiican u qabanayo, laakiin I love this highlight. maanta dahabigii ma sameynayno maanta, pinkiguna waa qurux. stunning, absolutely in love. anu waan ka helaa, aad baan uga helaa, especially qofku inuu blend gareeyo. and obviously waan jarayaa videoga, marka too much blending maan sameynay. highlights waan ku blend gareynay blushkii iyo aad buu si fiican u soo baxayaa. marka soo arkisiinba. Okay, marka waxaan sameynaynaa indhahaan soo sameynaynaa. actually waan itusayaa saan u sameeyo. waxaan isticmaalna waxa weeye ABH palette maanta isticmaalanaa. waxa weeyaan Anastasia Beverly Hills Jackie Aina collaboration weeyaan. and waa kaa kalarada qurux badan ayaa maanta
marsanana waxaa dama marsanano maanta to be honest waxaan doonayaa one color ama two color inaan isticmaalo waayo lipskii baa dee casaan ka degaya marka waxaan doonayaa makeupka indhaha inuu in yar noqdo aan lashes qurux badan gashano maanta and then lips gonna red ahaado ma fiicno too much going on it's not nice marka indhaha maanta actually to be honest waxaan isticmaalayaa one color baan isticmaalayaa colorka la yiraahdo credit colorkaas buniga dark chocolate bunni ayaan indhaha marinaynaa waxaan soo qaadanayaan waxa weeyaan fluffy brush waxa weeyaan Morphe M441 brush ayaan doonayaa inaan ku blend garay uun marka credit waan soo qaadanayaa clean brush credit ayaan soo qaadanayaa and then indhaha aan saa u marina already waan conceal garanay marka waxaan doonayaa inaan bes ku blend garayo colorkan soo arkisiinba very simple look weyn especially xagga indhaha maanta too much ma isticmaalano colorka inaan ku blend garayno indhaha yaa aad u muhiim imika anu colorkan horta waa kala yaro cajiiba oo qurux badan maasha allah absolutely in love ka ish uman ku blend garayna waa kaas indihii oo dhan ayaan ku blend garanay I absolutely love it especially you know haddaan sameynayo brown lipstick MAC you know lipstick chestnut lip liner haddaad doonaysiin saa waa sameyn kartiin brown waa isticmaali kartiin furuuraha makeupkan wuu isku soo baxayaa laakiin anan xaggan yar haddaa isticmaashiin duales amba sponsored duales waa colorka sponsoredna waa colorkaas haddaa isticmaashiin and then brown lipstick like chestnut lip liner and then what else well and persistence hadday isiin wada lipstick marsada this look qurux u noqonayaa laakiin for us waxaan isticmaalnaa maanta waxa weeyaan Sephora lipstick baan isticmaalnaa aan aad ugu helo aan aad u jecel yahay marka waxaan sameyn doonaa insha allah eyelasheska ayaan soo gashanayaa suniyahaygaan soo sameyn doonaa okay waa kaas eyelasheskii baan soo gashtay eyebrowskii baan soo sameeyey and then gel baan eyebrowska mariyey gelka aan mariyey waxa weeyaan brow this way baan isticmaalaa by I think waa Rimmel isticmaalaa waxa weeyaan styling gel very muhiim insha allah markaan sameeyo saan u sameeyo suniya ayaa soo bixi doonaa insha allah marka waan tusi doonaa alaabo oo dhan aan isticmaalo sidaan suniyahayga u sameeyo I know commentka gabadh baa iga soo codsatay inaan sameeyo video suniyahasta loo sameeyo insha allah wuu soo socdaa insha allah maan ku iloobin amba maan iloobin commentkaaga next marka waxaan doonayaa inaan sameeyo furuurahayga maanta niyadiba waxaan doonayaa inuu eyesku very simple ahaado laakiin lasheskii baa very you know indihii soo bixinaya indahana waxaan mariyey eyeliner black eyeliner ayaan mariyey amba inta ku xul qalinka madow ayaan mariyey indhaha hoostiisa mascarana in yar baan xagga cornerka xaggan maan ku sameyn xagga cornerka baan yar mariyey Sephora marka waan iska dayay lipstiga Sephora ma doonin inaan marso waxaan doonayaa inaan imika marsado Fenty Beauty lips dana ayaa la dhahaa baan maleynayaa uncensored baa la dhahaa stunner lip paint marka waa casaan aad iyo aad u cas marka ma doonayo in badan inaan isticmaalo marka bal waxaan ku yara bilaabanaa in yar baan ku bilaabanaa waan masaxayaana soo arkisiinba brush yar oo qurux badan weeyaan soo arkisiinba marka waa Fenty Beauty okay waxaan ku bilaabayaa marka centerka ayaan ku yara bilaabayaa waa lip paint oo kale marka furuurta hoosta ayaan dusha saa u marinayaa waa kaas lipskii waan dhameeyey
وكاس finish looky ما شاء الله وان دميي سو أركسين با أدو ما سنتهاي أنا حق حلقة سو قارتي فيديو جنا يندون إن نير هذا آدي بما سنتهاي حاول كومنت نكو سوقر هذا دون نسيت ميك اب لوك كلا عن سمايو إنه كدون نسين ونيس من إن شاء الله حق إنستغرام كسناب شات كفيسبوك أيجا مسج قرية and then إن شاء الله واني recreate كرين كرا واني create كرين كرا ميك اب أيجا صعصتين إن شاء الله and وحن دونا يا إن استعماله NYX professional makeup matte finish setting spray. I feel like because makeup look وحن دونا إن كودا منو a matte finish ما دام ما تودن like قروح بكتريا وارك دونتين إن شاء الله. هدا إيبسدا guys were very good affordable نوعين ورقيس وين long lasting makeup كاغا ما أنتو دم بخشوجيسا were very good سفي عن مكابا بقايو you know already powder كي حاجة مرناي blush كي وحي أودن contour كي محلنا bronzer كي وكل يالا مكابا بيدونو هدا استعمال شد setting spray أمبا long lasting setting spray أمبا finish matte were very important in our midfican or finish matte إيبستيد مركا أنو كان كهلا so مسكورة بوفيننا إن شاء الله. إن شاء الله waxaan sameyn doonaa markaa isku soo saari doonaa xijaabkan waan iska soo bedeli doonaa insha Allah darka oo dhan waan iska soo bedelayaa maadaama aan maalinteeda iska wadanayo insha Allah iyo vlog baan sameynayaa maanta marka waan wadaa vlogna waan sameynayaa oo channelkan insha Allah ayaan vlog u sameynayaa marka darkaan iska soo bedeli doonaa waan iska soo noqon doonaa insha Allah marka waa kaas waan iga soo noqday waan soo libistay xijaab qurux badan waan soo xidhay oo ka heli kartiin collectionkayga insha Allah maadaama YouTube kan horta waaba YouTube cusub dadku si fiican ma garanayaan su'aalo badan baa isoo weydiiyaa khamaarada aan xidho ha ka iibsataa marka insha Allah video ku saabsan baan sameyn doonaa laakiin waa kaas makeup lookii waan dhameeyay maanta Valentines Day makeup look waa completed aad baa u maasantahay inaad soo gaartay videoga qaybtan waa qaybta u dambeysay waxaan doonayaa yiraahdo aad baa wala maasantihiin inaad daawateen makeup lookan obviously soo arkisiin baa indhaha maha aad man u sameyn eyeshadow badan and because waxaan doonaa focuska maanta inuu ahaado facekeena highlightka blushka contourka bronzerka highlights ku ahaado iyo fururahayga oo red lipstick maanta aan marsanayno marka waxa very important qofku inuu xirto eyelashes aad u qurux badan oo indhahaga qurux ka dhigaya maadaama aan contour ka dhignay indhaha intuu regardless uu soo baxaya marka waxaan isticmaalanaa ABH eyeshadow soo arkiseenba Anastasia Beverly Hills ayaan isticmaalnay waa very good palette hadda iibsan kartiin palettekan waa palette yar oo qurux badan oo kalaro aad inagu soo baxaya habeena Soomaaliyeed ayaa ka buuxa marka gabar madow baa actually la collaborate garaysay ABH and paletteskaasi la soo baxday marka waa palette qurux badan so marka lashes waa very important lashes kana waxa weeyaan collectionkayga Maya lashes hadda Instagram ku qortiin waa arkisiin and I think waan isku cusubnahay aad baan isku cusubnahay san yiriba channel kalan haysta su'aalo badan baa commentada ka arkaa laakiin insha Allah waan sameyn doonaa su'aal iyo jawaab baan sameyn doonaa channelkayga insha Allah subscribe ka iga iloobin like iyo comments-ka iyo share-ka asxaabta walaalaha u dira si iyagu uga faa'iideystaan sida maanta Valentines Day lookan aan u sameeyay insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.